السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada mar kale barnaamijyadeena caafimaadka muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa vitaminiska la iska qaato ama qofku mar walba uu dawo cunayo oo ku qaato ama iyadoo aan loo qorin oo farmashiga ka iibsado dhibaato ku keeni karta caafimaad qofka jirkiisa sidaan wada ognahaba vitaminisku waa nutrients ama nafaqo oo jirku u baahan yahay si caafimaadka guud ee jirka uu hagaajiyo marka qaar waxa dhacda in qofku iska qaato vitamins aad u tiro badan kaas oo aan loo qorin laga yaabo inuu san jirkiisu u baahnayn oo jirkiisu haysto taasina waxa ay sababtaa in qofkaasi ay la soo dirsaan wax lagu magacaabo hypervitaminosis ama vitamin toxicity taas oo ah in vitaminku uu sun ku noqdo jirka marxaladan waxa sababta in qofku qaato raashin gooni ah oo vitamin nooc gooni ah laga helo isla markaana oo badsado oo si xad dhaaf ah oo isticmaalo in dawooyin oo qaato kuwaas oo ku sababaya raashin walba oo isticmaalo inuu kala baxo ama uu jirkiisu ka dhuuqo nooc kamid ah vitaminka si gooni ah ama in uu qaato sidan hore u soo sheegnaba vitamins supplements oo ah kaniiniyaal ka samaysan vitamin si joogto ahna oo u qaato jirkiisa oo u baahnayn si guud vitaminku waa nafaqo oo jirka u baahan yahay kaas oo qofku intuu kaga baahnaa marka uu qaato ama uu jirkiisu haysto oo ka caawin doono jirka qaybaheeda kala duwan caafimaad qabkooda sida lafaha xididada maqaarka nerfiska iyo dheefshiidka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee jirka si guud vitaminisku waa vitamin A, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B9, B2 alif, B7, vitamin C, vitamin D, vitamin E iyo vitamin K. Vitaminiska waxa loo qaybiyaa laba nooc oo kala ah fat soluble vitamins iyo water soluble vitamins. Fat soluble vitaminisku waa kuwa ugu dhibka badan qofku hadii uu iska qaato jirkiisa oo u baahnayn jirku marka uu dhuuqo ama in laga saaro raashinkana waxa uu ku sameeyaa storage ama kayd markii loo baahdo si dib loogu isticmaalo halka kuwa water soluble ka ah oo jirku isla markiiba isticmaalo oo san kayd galin vitaminada fat soluble ka ah waxa loo soo gaabiyaa adeeg vitamins ama adeeg vitamins waa vitamin A, vitamin D, vitamin E iyo vitamin K halka kuwa soo haray ee vitamin B1, B2, B3, B6, B7, B2 alif, B9 ay yihiin vitaminiska ku milma biyaha kuwaas oo ka dhib yar marka ay jirka ku bataan kuwa kale ee adeeg vitamins ama fat soluble vitaminiska lagu magacaabo si guud vitaminiska waxa laga helaa hilibka sida digaaga kalluunka iyo sidoo kale ukunta qudaarta noocyadeeda kala duwan ayaa laga helaa hadii aan ku soo noqono dhibaatada ay jirka ku keeni karaan ugu horeyn vitamin A ga waxa uu jirka ka caawiyaa inuu qayb ka qaato aragga iyo difaaca jirka marka hadii uu ku bato oo jirku asagoon u baahnayn supplements dheeraad ah qofku uu qaato waxa ku keeni doona vision disturbance ama qalqal ku yimaada xagga aragga difaaca madax xanuun lalabo marka qaar qofku wuxuu gelin karaa kooma ilaa marka qaar oo u dhinto ama u dhiman karo qofku waa vitamin A ga wuxuuna ka tirsan yahay vitaminiski fat soluble ka ahaa ee ahaa kuwa ugu dhibka badan hadii ay jirka ku bataan waxa ku xiga vitamin B gu fara badan yahay waa B1, B2, B3, B5, B7, B9, B2 alif iyo kuwa la xiriira vitamin B gu uu ka dhib yar yahay kuwa kale inta badan ma laha toxicity ama sun kuma ahan jirka laakiin waxa uu sun badan vitamin B3 ga kaas oo lagu ilaaliyo heerarka cholesterolka marka uu jirka ku batana ku keena xididada dhiigga in ay dhiig badan soo galiyaan jirka maqaarka qofka inuu cuncun fara badan oo ka dareemo isxoqid iyo nabro allergic reaction inuu qofku dareemo waxa ku xiga marka vitamin C ga waxa lagu magacaabaa antioxidant vitamin ama vitaminada waa mid kamid ah vitaminada sunta ka saara jirka difaaca qofka hormariya inta badan asagu ma laha reaction fara badan oo sun kuma noqdo jirka waxa ku xiga marka vitamin D ga waxa uu sahlaa qofka jirkiisa in raashinka uu qaatay oo ka dhuuqo calciumki oo jirka u baahnaa sida caadigan ah
sida caadiga ahna vitamin D-ga waxa laga helaa qofka jirkiisu marka uu la kulmo falaaraha qoraxda markaasna sahal noqoto in calciumki jirka laga dhuuqo isla markaana deposition ama meelihii loogu baahnaa la geeyo si lafaha ama qaybaha kala duwan ee jirka loogu adeegsado hadii qofku marka uu isticmaalo vitamin D dheeraada jirkiisa oo u baahnayn waxa dhici doonta in calcium fara badan ee jirka soo gasho kaliyaha si dhagax ahaana ay ugu abuuranto calciumki calooshiisu ay adkaato dheefshiidkiisana oo xumaado qofkaasna kaadidu ay ku adkaato oo dhagaxu uu xiro duleelka kaadida waxa ku xiga vitamin E-gu wuxuu ka qayb ka yahay antioxidantska vitaminiska sunta jirka ka saara asaga hadii qofku uu badsado si gooni ah ragga ayuu wuxuu ugu keenaa prostate cancerka sidoo kalena wuxuu keeni karaa dhiigbax iyo waxyaabaha la xiriira ugu dambeyn vitamin K waxa loo isticmaalaa coagulationka ama qofka marka uu dhiigbax ku jiro ayaa la siiyaa qofka si dhiigbaxaas uu u yaraado qofkuna uga gaashaanto laakiin si guud qofka lama siiyo marka uu isticmaalayo dawooyinka xinjirta lagu la dagaalamo ee lagu magacaabo anticoagulantska waa mahadsantiin